lamaana isbartay sanadkii 1928 oo u dabaaldegaya sanad guuradii 8aad guurkooda. Helen waa 101 jir halka Morris uu yahay 102 jir u dabaaldegaya sanad guurada 8aad sanad guurada arooskooda. jooji khiyaanada. aan dib u noqono bilowgeedii. sideed isku barateen markii ugu horeysay? waxaan ka shaqaynayay dukaanka hooyaday qiyaastii 3 saacadood kadib hooyaday waxay igu tiri yarkaan ma adaa banaanka u bixinaya mise aniga. saas ayay isbarashadeenu ku bilaabatay Agoosto 27 1934. aan idin weydiiyo inaad si sax ah u xasuusataan maalintaas. maxay ahayd xasuustaada ugu weyn ee maalintan? waxa uu ahaa aroos qurux badan oo dhacay. waxaan isguursanay saacada 1 markay ahayd. kadib waxaan halkaas ku qaadanay waxay ugu yeeraan quraacda arooska. waxay ahayd ilaa 6 goor soo cunta. maxay ahayd xasuustaada ugu weyn ee maalintan lafteeda? maalintaas asal ahaan waxay ahayd inaan hareer istaago waxaan sameynayay wixii la igu yiraahdo sameey. ma maleynayseen marka tan inay socon karto muddo 80 sano ah ama aad isku waari kartaa? waxaanba u haystay maalinkeenii arooska inuu ahaa toddobaadkii la soo dhaafay. labadeennaba waan ku qosalnaa waxa isku midka aan jecelnahay. faa'iidada ugu weyn waxay ahayd markasta waxa aan ku raacayay sida ay iyadu ku rabto. markaas anigu ammaan ayaan ahaa. taasi sax maaha. waa maxay sirta guurkiinan xilliga dheer? ma garanayo. labadeennaba waan ku qosalnaa waxa isku midka aan jecelnahay. sanadaas dheer aad qabteen muxuu kuu keenaa ubaxyo jallaato nin noocee buu ahaa? maya mar buu ii keenay ubaxyo dhammaantood way dhinteen. ma garanayo meelay hadda ku sugan yihiin. mana jirto ubaxyo mana ii keenin sidoo kale shukulaato laakiin siyaabo kale ayuu igu naxariis badnaa. ma jiraa siro aad isku qarisaan? maya. waa uu leeyahay sir isaga. waxa uu joogay Iceland 2 sano. sidee ku garanayaa waxa uu ku sameynaya halkaas? maxaad isleedihiin dadku inta isguursadaan waqti dheer misla sii joogi karaan hadda? saas baan filayaa. marka ogow waa in la isku dulqaataa. waa inaan la isku adkaan. haddii aad wax yar samayso ama bixiso waxoo kale ayaad helaysaa. haa wax yar unbay samaysay sidaa ii sheegtay. nolol wanaagsan ayaad qaadateen muddo 80 sano ah. ma nasiibba ma shaqo adag oo aad qabateenba ma qadarba? maxaad u malaynaysaa? waa nasiib iyo qadar isla socda. wax noo qorshaysnaa ma jirin. sidee u qorsheyn kartaa 80 sano? dabcan waa wax qornaa. sidaan u malaynayo waa wax qornaa iyo nasiib. weli ma isjeceshihiin iminka? haa ma i jeceshahay? iska jir taxadar.